maayarka magaalada mas-uuliyiinta kale oo sharafta leh gabdhaha haweenka ardayda macallimiinta maamulka jaamacadda Samtek dhammaan iyo ka soo qaybgalayaasha saxaafadda waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta islaamka bacdi waxa farxad ii ah inaan ka soo qayb galo safar dheerna u soo galo xafladan quruxda badan leh oo ka socota halkaan ayna soo bandhigayaan jaamacadda Samtek iyo wujuuhdan quruxda badan leh oo xirfadaha kala duwan bartay waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda Samtek oo soo qaban qaabisay marka ugu horeysa dadkan quruxda badan leh soo saarta wax soo bartay xafladana soo agaasintay aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaleeto oo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha sida horeba idinkugu sheegay intaan hadalka bilaabay waxaan rabaa gudoomiyahan isaga fadhinay baan su'aalo weydiiyay waxaan caqabada kuugu adkayd oo halkaan aad kala kulantid maxay ahayd intii aad gudoomiye ahayd ammaanka ka bacdi buu yiri perceptionka dadka ama aragtida dadka ama dadku wax ay ka qabaan in wax la barto oo waliba farsamada gacanta la barto inaan wax ka qabto ay ugu adkayd buu yiri sababtoo dadkeenu fikrad xun bay ka aaminsan yihiin dadka ugu horumarsan waa dadka shaqooyinka fudfudud qabta oo aan la fahmin baa runtii ah marka runtii waxaan la qabaa gudoomiyaha idinkuna waxa laga yaabaa inaan maanta inaan isla qaadano halku dhigeenu uu noqdo aan ugu horumarahay gudoomiyaha inaynu bedelo perceptionka ama aragtida ama waxa aynu ka qabno cugdada aynu ka qabno barashada farsamada gacanta ama shaqooyinka la qabto marka inta ka bacdi waxaan rabaa inaan warbixin yar idinka siiyo meesha laga soo maray meeshan iyo dhabaatay laga soo maray runtii meel fog ayay ka bilaabatay oo aad iyo aad u fog ayay ka bilaabatay in dadkan la soo saaro maanta oo heerka la gaaro hal qol iyo hal macallin bay ka bilaabatay maantana meesha arkaysaan bay maraysaan marka waxa weeye warbixinta guud oo idinka siinaya waxa weeye dadku hadda wuxuu u jihaystay oo loo dhaqaaqay in la aado in farsamada gacanta la baro waxa la ogaaday waxa kaliya lagu horumari karo inay tahay farsamada gacanta in lagu horumari karo ayaa la ogaaday maalinta Itoobiya ayaan tagnay anagoo wafdi badan ah dawladda federaalka oo hogaaminayso waxaan raadinaynay sida waxbarashada gacanta loo qabto waxaan hortana si wanaaga oo aan aragnay oo aan ku faanay Soomaaliya oo dhan ku faantay centerkan ama xaruntan ama jaamacaddan Samtek inay ka jirto Soomaaliya ay ka jirto arday intaas leegna ay soo saartay wadanka gudihiisa ay ka shaqeeyaan ayaan ku faanay runtiina way ka diiwaan gashan tahay meesha aan aragnay jigjiga iyo meesha leeyahay Addis Ababa labadaba waxay noo sheegeen boqolkiiba 80 ardayda dugsiyada sare ka soo baxda in loo leexiyay inay farsamada gacanta bartaan boqolkiiba 20 kaliya ayaa loo ogolaaday inay jaamacadda aadaan kaliya sababtoo waxa la arkay sida gudoomiyuhu hadda sheegayay dad baaj wata dad master wata oo dibadda iska fadhiya wax shaqaadaya iyo wiil korontada sida loo xiro barta oo maalintii intaas oo lacag ay soo gasho ama alwaaxa sida loo sameeyo barta ama gabar dharka sida loo kariyo barata ama gabar wax sida loo cilaamayo barata oo reerkeedii carruurteedii gurigeedii iyo qoyskeedii ku filaatay oo dayactirtay marka waxa hawday malaa'anina chance ba haysata saataan aan dadku haysan in arintaas ka faa'iideysataan ayaan kula dardaarmaya waxaan rabaa inaan la dardaarmo 3 qolo ama 4 qoloba kow waalidiinay keena caruurteena qofkii waxbarashada gaaray oo waxbarashada ka weynaaday inay jaamacaddan keenaan si akhris qorista loo baro ka bacdina loo baro xirfad ugu shaqeysto waxaan kaloo la dardaarmayaa ardayda waxbaratay inay halka ka sii wadaan waxaan kaloo la dardaarmayaa degmadu inay garab ku siiso gudoomiyuhu waa nin dhalinyaro aad ugu firfircoon hawlahaas aqoon-yahana ah in arintaas uu garab ku siiyo dadka dhanna sida ololihii afka Soomaaliga si campaign jaamacadda loogu soo xareeyo si ay u bartaan akhris qorista iyo xirfadda si looga shaqeysto waxaan kaloo fariin u dirayaa wasaaradaha waxbarashada midda federaalka iyo midda heer gobol labadaba inay aad u caawiyaan garabna siiyaan xirfadaha iyo farsamada gacanta inay garab siiyaan waxaan kaloo ka codsanaynaa hay'adaha saaxiibadana ay wadaagtanahay inay nagala shaqeeyaan oo naga caawiyaan
oo boqolkiiba 80 u wareejiyaan fankooda iyo barbowsaladooda iyo concept note-kooda in dadka farsamada gacanta la baro midda kaliya aan uga bixi karto baahida iyo khaladaasaha jira iyo dhibaatooyinka jira runtii midaas weeye aad baan uga codsanayaa iyagana Samtech waxaan ka codsanayaa inay hawshaan wadaan xataa ayaatee kala yaqiin inay wadaan oo sidii garab gacanta ugu xirteen oo ugu baraarugeen oo u bilaabeen ay halkaas uga sii wadaan wax alla wax u yimaado aan waxba garanayna ay aqoonta ka dhisaan halkaasna gaarsiiyaan intaas ayaan hadalkayga ku soo koobayaa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay si la igu soo dhaweeyay magaalada iyo si lay qaabilay iyo si lay sharfay si lay karaameeyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh